Bismillah daawade kusoo dhawaada koorsadani barashada Windows 10. Maanta waxaa ka hadli doonaa qodobo muhiim ah. Midka ugu horeeya wuxuu yahay tusaale waxaa kaa xirmi waayay application kuu shidnaa sidee u close garayn kartaa. Sidoo kale sidee screenshot uga qaadi kartaa computerkaaga shaashadiisa iyo weliba sidaad usoo zoom garayn karto shaashada iyo waxaa la yiraahdo power plan. Okay, waxaan ka hadli doonaa sida application يعني كاحرمي واي aad u xiri karto tusaale application-ka inuu Chrome oo kale ama sawirka inuu kacsan oo kale ayaa xiri weynay uu saadkeeyo kale sida u xiri kartaa ugu horreyn waxay maadada halkan task bar-ka right click ayaa dhihi doontaa kadibna waxaad tagi doontaa halkaas ay ku qoran tahay task manager markaad timaado halkan application qaban doona okay waxaan rabaa application-kan WhatsApp oo kale inaan xiro right click ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay end task ayaan leeyahay automatically waa uu xirmay sida kuu muuqata okay Windows Explorer kale isna waa uu ii furan yahay right click ayaan dhihi doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa end task application-ka ka xirmi waayo kale oo kuu kacsan sidaas ayaa ku xiraysaa okay halkan xataa wuxuu kugu tusayaa CPU intuu ka isticmaalayo memory intuu ka isticmaalayo yani mijido as a percentage uu ku tusaya okay xarjina in isla fahanay qaybtaas okay waxaan fiirin doonaa marka sidee shaashadayda qayb kamid ah usoo dhaweyn karaa usoo zoom garayn karaa okay halkan imo calaamada start menu-ga okay kadib waxaa ku qori doonaa magnifier waa kana kadib waa kanaaba minus plus يعني sida aan yani hadda min plus oo kala dad oo soo dhaweeyo meel banaan oo kale uu soo dhaweynaya laakiin shaashada waxa uu wadaya dhinaca uu rabo ayaa shaashada u wadaya mar walba hatta application uu ku kacsan yahay waa isticmaali kartaa magnifier-ka dhinacaan oo kale u wadaya hadda dhinacaan u wadaya akasa sida ku muuqata yani qayb walba aragta ayaa soo dhaweyn kartaa zoom-ka waa sii badsan kartaa واسيب كرتا اوكي I hope in la fahmay حتى settings ayuu leeyahay speed-ka ina kordhisan karto aad yareysan karto okay speed-ka waad dareemi kartaa yani markaa wadwadaysid okay waxaan rajaynaa in aad loo fahmay okay waxaad la fiirin doonaa markaa qaabka aad screenshot uga qaadi karto shaashada computerka okay halkan imo kadib waxaa noogu qortaa sniping tool sn markaa qorob uu soo bixi doonaa sniping tool okay new halkaas ayaan dooran doonaa maadaama screen qaadi rabo kadib calaamadii weli meesha ii saaran tahay calaamadan kaama celin karto inaad screen qaadid oo yani kaama qasayso meeshaan ay ku aadinto kale wax saaran oo kale hadaad screen ka qaadi rabtid agteeda un ka bilow waa iska qarsoomi doontaa inta aad rabto waa kaasa intaas oo kale fiiri okay hadda waxaan rabaa no wide sniping tool ku soo laabo sniping tool okay new ayaan leeyahay waxaan rabaa hospital kan bas inaan screen ka qaato new ayaan leeyahay waa soo jiidaya muuska anoo click haayo kadib waa kaasa file ayaan leeyahay si aan u save gareysto save as kadib desktop isoo dhig BBT igu qor okay save ida marka akana BBT ayaa kusoo qor masawirkii wuxuuna inoo soo galay akana harjina in aad loo fahmo marka qaabka screenshot uga qaadi karto meel walba aad ku jirto screenshot ku qaadi kartaa tusaale PC oo kale imo halkan kala rabaa inaan ka qaado screen-ka kaliya ma aha desktop-ka shaashada kaliya ma aha meel walba aad ku jirto screen-ka waa qaadi kartaa new ayaa leeyahay akasa inta rabo cabirka rabo kaliya muuska deynaya waa kana sawirka sida hadda oo kale ayaan safe u dhahan doontaa okay warjina in aad loo fahmo marka okay power plan muxuu yahay marka power plan horta hadii aan ku faahfaahiyo control panel-ka imo system and security then waxaa imaan doonaa power options marka imaado waa kana change plan settings imo okay meeshan kood waxay tahay yani on battery caadi marka isticmaalayso ilaa intee rabtaa inuu computerkaaga damo turn off the display
10 daqiiqo gudahooda miya 5 daqiiqo gudahooda miya markuu dabka ku jiro yani markaad isticmaalaynin waaye fahmi wakana wuxuu ku leeyahay choose the sleep and display settings that you want your computer to use okay waa kordhisan kartaa okay calaamadda but the computer to sleep computer sleep damitaan ma aha tan waa sleep waxaa la lahaa yani computer in shaashadiisa kaliya ay danto marka badhan kamida taabatidna uu soo shidmo badan halkan 10 daqiiqo ayaa la saataa markuu dabka ku jirana sleep ka 30 daqiiqo aan sidaas u isaaran yahay restore default waa dhihi kartaa restore default oo kala daan dhaho akana 5 daqiiqo ayuu ii noqday laakiin waxa wanaagsan 10 daqiiqo in laga dhigto I hope in aad loo fahmay safe changes ii marka waxaan rajaynayaa in aad loo fahmay oo ku mahadsan tahay daawashada casharkan kan xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo